toddobaatameeyadii ilaa iminka ayaa waxa uu ka ganacsanayaa rootiga isaga oo ka raadinaya wax uu ku dabaro qoyskiisa walow ka ganacsiga rootiga uusan lahayn dhaqaale sidaasi u buuran Cabdicasiis Xuseen da'diisa waxa aan ku qiyaasay 61 sano waxa uu noloshiisa badankeeda ku soo qaatay iibinta rootigan waxa uu iiga waramay siduu ugu ganacsado rootiga iyo faa'iidada uu ka helo rootigan waxa ganacsigiisa waa lagu batay waqtigii hore dad yar oo tirsanaa gada jiray hadda laakiin ganacsiga waa batay dadkii ilaa meel kastaba waa qof kastaba ganacsi oo galay suuq waa weynaaday luuq kasta la dhigay maal joog iyo nolol maalmeeda uu leeyahay ma ogay wax horumar oo leeyahay guriga laga dhisay iyo waxa natiijino oo hore looga gaaray iyo wax midna ma jirto waa bariis la dirid iyo xoog nool in la xoogsatal waa sidaas waa shaqadiis waqtigii hore been alla ku tal lacaga ka soo saaray jirnay laakiin dad xasaa oo ka ma xisaabtamin kulli ilaantii ku diidan waa soo ilmo korsanay لا الحمد لله إلا دعنا كسو قاردي إلا شقدي وقت جي سنود كميتان وكل شيء تدبات ميدي إلا هذا كل حجرنا هذا نوابه بقول حبون ميس كسر ما أجي روتي أنا كم ما بقدر هبينا ما قدر صبحنا ووقت اللي حساب وأسكرها وحنا إسكحنا وصدق هاي فرق عن هذا سيدي دولتي محمد سيد أوبر برتلا هلا هنسوق لي إذا فرق كقيم كله وقت جي ورا موتا وذا جري شبه لكون حبو روتي أسار جري جدك صدمك مقايدة بدن أو قيبي جري موتا وذا جري باركست الله فرا كمارتا همبيكر الدنيا وحلا وحي لقدر بدا جي جرني نين هبين إيمالين صعدة شقي سنة حوك سنة هو بوده ودعاه هذه المكر سنة هاي وأنا الحمد لله وحاول المكرسي يوم لكن حساب تما هو وحمل كدك تنوا وهو كله سكري مسوى هذيك وبسيب وهو كذا كري لكن أنا كإله من وافي جنين الحمد لله وبسيب ده ونسكي جرنا روتينا وحوى وهذا جناعسي دتك وابطي dhanka kale waxaanu booqanay xarun lagu sameeyo rootiga halkaasi oo aan kula kulanay dhalinyaro ku howlan sameynta rootiga ayaana ahayn mid laga soo saaro dhaqaale badan dadka iibiya ayaana inta badan ka raadiyo qutulyoonka ay maalintii ku maareeyaan qoysaskooda rootigan hadda aad u jeedo baan oo liwaay laba kun lagu bixiya dadka oo macaamiishana kun shan lagu siiya midadkana taad waa kan waxa duwa buskut qaabka loo sameeyo rootiga makiinada samarta lagu cajiima baan oo lagu wareejiya mid kalena ugu keenay caadi loo kuusaa marta inta lagu kuusaa wallahi runtii muddo oo 2 saac ma qaadanay muddo 2 saac ma la qasaa wala qamiirina adan miis kala soo saara kadib marka hadda la soo qaada waa la jarjaraa waa la toosinaa waa la kuusaa waa la kasbayna kadib marta tablooyinkaas lagu diyaarinaa marka Safiya Ismaan Cabdulle Shabelle TV magaalada Muqdisho